السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنت دنبا وحيصله كسر هذا برنامج كني دلنت الصومالي دبكو إنه جار ربحانتي دلنت الصومالي ده هدانا هاي دبابو حا إنها يستأن دوني ده إيا دلين يروين كدوني ده كلا أن لا هيسنن دلنت الصومالي ده رنهانتي واتير أوديد أو آد وعدادك لاغونا هرمرين كارو ودمد الصومالي وحديث ده صحدا الله استعماله حديث الثقل دان لو استعماله إيا سيدا هذا لو استعماله يواسف لبا أفله waana ay ku sari doonaan haddii sida saxda ah loo isticmaali waayo laguna caburiyo shaqooyinka mas'uuliyadda dalka iyo nolosha dhan lagu caburiyo lagana siin waayo dalkooda wax xaq iyo wax xuquuq ah waxa laga dhaxli doonaa dhab ahaantii ama waxaaba si dhab ah looga dhaxlay dhaqanno iyo musiibooyin run ahaantii aan cidhibtooda lama hadinin qofkii dhaayihiisu ay furan yihiin ee dhab ahaantii wadankiisa iyo dalkiisa la xijeclo u qabana wuxuu arkaa run ahaantii maalin kasta waxyaabo uu ka naxo qalbigiisuna uu jabo rajadiisa hankiisa iyo himilada uu dalkiisa kala haana run ahaantii uu gabo oo hoos u sii dhaco sida haddaba inoo muuqato waxaan aragnaa maalin kasta dhalinyaro la daldalahaya ama intii tiir lagu xidhan la tooganhayo oo sababta loo tooganaya ay tahay dambiyo waaweyn oo ay galeen sida wiil xaaskiisa dilay gabadh ninkeeda dishay qof kale sabab la'aan ama wax aan micno lahayn ku dilay waa su'aal daaweyn oo aan ku daalay anigoo iyaa ka dambeeya hawshaas bal dhalinyaradan sababaha waxaa ku kalifaya ma isweydiisay maalin kasta waxaan arkaa kuwa ku faanaya qofkii la dilay oo leh qof ayuu dilay balse ma isweydiisay sababta qofkan uu dilay bal arrintaasi intaas si dhab ah oo lixjecel ku dheehan tahay aad ila falanqayso aynu soo saaro dhibka ka dambeeya dhalinyaradani waxa ay sababta u sameynayaan sidoo kale waxaan hubnaa markhaatina ka nahay kumanaan jeelasha ku jira oo eedeysanayaal ah laguna eedeeyay dambiyada kuwooda waaweyn kuwa yaryar iyo kuwa dhaxaba maxaa sababay arrintaasi waxa kale oo aragnaa kuwa iyaga oo kala muraadsanaya ama kala danaysanaya isna qabin social media banaankiisa isa soo dhigaya waa waxa qarxiska adoola baxdeen iyada oo gabadha banaanka la soo dhigaya ee YouTube-ka ama TikTok-ka ama Instagram-ka la soo dhigaya ay tahay gabadh rag dhalay oo Soomaaliyeed oo sharaf leh reerkooduna u haystaan inay gabar tahay iyada oo la sheego kuwa badan si ula kaca iyo aan caan noqda inay isu soo dhigaan social media waxa kale oo aragnaa sidoo kale kuwa isqaawinaya oo social media dhex wareegaya sida TikTok iyo YouTube-ka iyo qaybaha kale ee baraha bulshada waxa kale oo aragnaa maalin kasta dhalinyaro boqolaal ah ama kumanaan ah oo u qulqulaya ama u tahriibaya dalal kale kuna daadanaya ama ku dhimanaya ku baaba'aya badaha oo si dhab ah u aaminsan haday dalkaasi gaaraan inay jannatul firdaws galayaan haddii dalkooda lagu soo celiyana ay aaminsan yihiin in jaxiima iyo jahannaba dib loogu soo celiyo oo ay galeen sidoo kalena aad arkayso qaybo nolosha ay ku nool yihiin ay ka doorbidi lahaayeen run ahaantii dhimashada haddaba soo xaq oo ma lihin inaynu falanqayno oo aynu isla qaadaa dhignaa arrintan iyo sababaha ka dambeeya aynuna raadinaa xalka kama dambaysta aha iyo dhibku halka uu ka soo burqanhayo si dhab ahana aanu dhayana dhaawaceenna si aan nolosha rajooyinkeenna riyooyinkeenna hankeenna iyo himiladeenna aynu u rumayno haddaba dhilinta Soomaaliya ee fiidiyowgan iswada gaarsiiya si dhab ahana aynu u wada falanqayno arrintan aynuna iska qabanno dhibaatadan soo burqanhayso ee aan dhammaadka lahayn si aynu u gaarno bulshooyinka caalamka nafteenna iyo bulshadeennana aanu horumarino lana soco qaybta labaad waana wadi doonaa barnaamijkan ilaa aan xalka dhabta aan ka gaarno sidaa iyo waxaan idinkaga sii tagayaa salaamu alaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh